magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer ayaa ilaa xalay lagu soo daabulayay ciidamo booliis oo tiro badan si ay u adkeeyaan amniga safarka imaatinka Gaboose ee magaalada Burco hase yeeshee dhalinyaro tiro badan oo godoosan oo isugu yimi wadooyinka waaweyn ee halbowlaha ee magaalada Burco dhex mara ayaa ka bilaabay buuq iyo qaylo ay ku muujinayaan dareenkooda markii uu soo gaadhay wafdida uu hogaaminayay Gaboose iyagoona gaadiidka ciidanka booliiska ay meel kasta yaacayeen si ay u adkeeyaan amniga bal haddaba aynu eegno jawiga magaalada Burco sida uu ahaa maanta qaar ka mid ah dhalinyarada mudaharaadka sameeyay ayaa aragtidooda ka dhiibtay arrintani waxaad ka aragtaan in dalkii la geliyay rabash in magaaladeedii ciidan la soo geliyay in adarkiisa si qubir ay yahay in dhalinyaradu dareenkooda muujinayaan oo ay diidan yihiin waxa Muuse wado ee uu nagu wado haddii aanu doonayno cid Muuse wato Muuse leeyahay yeeli mayno haddaan nahay dhalinyarada reer Burco waxaanu taageersanay weligiin baa taageersanay waxa la Gaboose ma doonayno 13 November doorashada qabanayo Muuse doorashada qabanayo 13 November gurigaaga kugu soo galnaa gurigaaga halka maanta waa arkaysaan dadka halka tuban waa reer Burco oo aan cid u maqnayn way soo baxeen dhalinyaro caruur haween odayaal ganacsato waxay ka soo horjeedaan sharci darrada la wado iyo ururka leeyahay la soo dhaweynayaa waxa halka kabla taagayo iyo waxa siiri baxaya iyo soo lagu qalin warkaysaan maanta dalkii sharciga gacanta lagu qaatay ninka madaxweynaha sharciga buu laabay wuxuu ka tagay dawladnimadii wuxuu ku shaqeynayaa wax isaga u dara waa arkaysaan ummadii Burco maanta waxaan leenahay ummadda khasab laguma maamuli karo waxaana doonaan laguma khasbi karo ummadda waa arkaysaan waxaanan jecelahay anu aan niyadeeda ka keenay inuu rajada shacabku wadaniyay waa Muuse dadku waxay ku midaysan yihiin waxay la xeerinaya haduu garan waayo waa ragnimada la isla soo jiray ninkii carri jiray oo carri kiistaag jiray oo istaagna waxa maanta halkan aan ku suganahay waa magaalada Burco dadka aad arkaysaan waxay taageero yihiin jamaahiirta caraysan astaantoodii ay sitaan calanka ay sitaan xisbiga wadani madaxweynaha muddada yaraayo xasan dhowr iyo 30 cashi waxaan leenahay war hakanaama seegin war dalka burburka ka daa war substationada France ka daa war ummadana dabada ka riixaysa ka daa waxaan leenahay ku soo noqo sharciga dalka u yaala cidii ku dooni mayso waxaan u sheegaynaa maanta Burco magaceedii bay qortay magaca Burco maanta waa xisbiga wadani dadka maanta halkaas ugu yimid waa dadka soo horjeeda ururadan gacan ku rimiska ee Muuse bixi gacantiisa ku rinsaday waanu ka soo horjeednaa annagu waxaanu taageersanay oo aanu taageero buuxda u haynaa madaxweynaha ayaamaha dhow ay harsan yihiin ee 9 cisho uu harsan yahay Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ciro kaasaan annagu wadana kaasay ummadoo dhan wadata kaasaan madaxweyne noqonaya 13 November insha Allah kaasaan wadana wax ka sokeeya ma rabno wax miyaan rabno wax ka saacada laga bilaabo anaguna kuma kalsoonin waxaan nahay taageerayaasha xisbiga rajada shacabka ayaan nahay Dr. Gaboose ma 200 askari oo hay'ado ku ilaalinaya wax ku taraya maanta 200 askari waxba ku tarimayaan 200 askari Burco ku dhex marin maayaan Shaakir Cabdiraxmaan Axmed telefishinka Saab Burco ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed